بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan khiyaarta nala socota waa 19 bisha May sanadka 2026 tabintan warar waaweyn oo culus oo caawa soo baxaya ayaan idin hayaa waxaana kamida caawa wadanka jamhuuriyadda islaamiga ee Iran gaar ahaan jasiiradda Qasham la yiraahdo waxa ka jira diyaar garow xoog leh nidaamyada difaaca hawada ayaa la dhaqaajiyay oo dhaqdhaqaaq sameynaya caawa waxaana inta badan gaar laga hayaa hawada kala duwan ee wadankaasi sababtu waxay tahay duqeymo iyo waliba dhaqdhaqaaq cusub oo dagaal oo laga baqayo haddaba sidee wax u socdaan maxaa ka soo kordhaya halkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay in weerar caawa uu qaadi lahaa uu dib u dhigay sabab la xiriira codsi ka yimi wadamada aan yiraahdo Sacuudiga iyo wadanka Qatar maxay yihiin codsiga wadamadaasi ay gudbiyeen waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian oo goor dhaweyd hadlay waxa uu yiri diyaar uma aha wadanka Iran inuu isdhiibo majalada Axios ka soo baxaysa wadanka Mareykanka waxa ay soo bandhigtay xogta ugu dambeysay damaca Mareykanka iyo waliba jawaab ay ka bixiyeen dawladda Washington hadal maanta ka soo yeeray dawladda Iran oo la xiriiray in cunaqabataynta wadankaasi saaran ee dhinaca shidaalka la qafiifiyay haddaba gobolka bariga dhexe caawa waxa cadaatay inuu dagaal aadayo laakiin waxa la isweydiinayaa sidee wax u dhaceen dhaqdhaqaaqida soconaya maxaa laga og yahay dawladda Iran sidee rabtaa inay isku difaacdo Mareykanka oo saacadee la soo dhaafay ciidankii ugu faraha badnaa ku daabulay gobolka bariga dhexe sida la yeelayo iyo waliba wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta oo ay suuragal tahay in dhinaca dhulka uu ka weeraro dawladda Iran oo dagaalka si rasmi ah ugu biiro qodobadaas ayaan si gaar ah u faaqidaya khiyaarta ay nala socotay ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara share gareeya muuqaalka saaxiibadiina la wadaaga haddii sidoo kale xogahan iyo kuwa kale dheeraad oo ka duwan waxaan ku baahiyay channelka Barrow Show oo YouTube-ka oo aad Barrow Show ku qori karto isla markaana subscribe saari karto xogahaasna aad halkaas kala soconayso dhinaca Facebook-gana waad nagu soo biiri kartaan oo meelaha soo kala duwan ayuu barnaamijyadeenu ka baxaan oo aad ka heli kartaan soo dhawaada ma doonaysa Mareykanka ayaa goor dhaweyd shir jiraayid qabtay waxana uu ku dhawaaqay in uu dib u dhigay tallaabo caawa uu ku weerari lahaa wadanka Iran kadib codsi ka yimi dawladaha gobolka qaarkood kuwaasi oo tilmaamay Trump inaanu ku degdegin dagaalka oo fursad kooban la siiyo arrimaha wada xaajoodka diblomaasiyadda iyadoo habeenka salaasada ah ee nagu soo foole la filayay in ama habeen dambe aan yiraahdo ay dhacaan kulamo xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha Trump uu qaadan karo iyo waliba qubarada aqalka cad ee qolka situation room-ka ay suuragalka ahayd inay ku kulmaan aqalka cad ee xaaladaha degdega ee dagaalka lagu falanqeeyo haddana waxaad moodaa caawa Trump inuu qaadi lahaa weerarkadiisa haddaba shirkii jiraayid warbixin laga qoray haddii aan si gaar ah u eego waxa la leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu qorsheeyay in maalinta bari ah oo weerar military ku qaadi lahaa wadanka Iran balse qorshahaasi dib loo dhigay kadib codsiyo ka yimid hogaamiyaasha dalalka qaliijka Trump waxa uu sheegay in amiirka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha Imaaraadka Carabta ay ka codsadeen in uu siiyo diblomaasiyadda fursad dheeraad ah iyagoo aaminsan buu yiri in heshiis laga gaari karayo dhinacyada hubka nuclear-ka ee wadanka Iran maadaama Trump sida muuqata aanu wali ku qancin soo jeedintii maanta dawladda Iran ka timi taasoo caawa xaaladda gaarsiisay baraka male iyo waliba in dagaalada dib loo soo amaamudo madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu tilmaamay in wada hadallada culus ee hadda u socdaan isla markaana ay jirto buu yiri rajo wanaagsan oo ah in la gaaro heshiis ay ku qanacsan yihiin Mareykanka iyo dalalka bariga dhexe isagoo hadlaya waxa uu yiri waxaan aaminsanahay in heshiiska la filayo in damaanad qaadi doono in Iran aysan waligeed yeelan buu yiri hubka nuclear-ka sida uu hadalka u dhigay asi kastaba Trump ayaa sheegay in wasaaradda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ku uu faray in ay sii ahaato heegan buuxa isla markaana ay diyaar u ahaato fulinta weerar ballaaran oo ka dhana Iran haddii wada xaajoojada fashilmaana arrintaasi si degdega loo gali doono hadalka Trump ayaa ku soo aadaya xilli walaaca uu haatan kor u baxayo isla markaana laga baqayo dagaalka inuu aad u sii xoogaysto
Trump waxa uu leeyahay dib u bilaabashada dagaalka waxay noo jirtaa wax yar majalladaha kala duwan ee Mareykanka waxay soo bandhigayaan xogo la xiriira sida dagaalkan hadii uu bilowdo gobolka bariga dhexe uu noqonayo majallada Axios oo soo xigatay mas'uuliyiin sare oo Mareykan ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ka fiirsanayo baaliri dib u bilaabashada howlgal military kadib markii Iran ay diiday dalabaadkii ugu muhiimsanaa ee Washington ee la xiriiray barnaamijkeeda nuclearka sida lagu sheegay warbixinta aqalka cad waxa uu aaminsan yahay soo jeedinta cusub ee Iran inaysan wax horumar ah oo dhaba keeni karayn isla markaana aysan ku filnayn baaliri heshiis cusub in laga gaaro mas'uulkan ayaa sheegay in Mareykanka uu Trump filaya baaliri in maalinta Salaasada uu la yeesho kulan degdega kooxda amniga qaranka si looga doodo xulashooyin military ah oo suuragal ah hadii Iran aysan bedelin mowqifkeeda ilaa iyo caawa sida dooda loo soo badinayo mas'uulka waxa uu leeyahay waxaan qasbanahay inaan wada hadal sii wadno hadii xitaa ay noqdaan baaliri kuwa lagu socodsiinayo cadaadis military iyo duqeyn dawladda Mareykanku ay sameynayso Washington waxay ku doodaysaa si kasta oo heshiis loo gaaro ama ay hoos u dhac yimaado isla markaana Iran ay ku adkaysatay in nuclearka si bacrimiso intaas ay noqonayso talaabo xoog leh iyadoo maanta wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov oo ku dhawaaqay in qayb ka mid ah xarumaha nuclearka ee Ruushka uu gacanta ku hayo Iran uu san aqbali karin in Mareykanka iyo waliba nidaamka Israel ay weerar ku qaadaan warbixinta waxay sidoo kale sheegtay in hindisaha Iran ee la soo mariyay Pakistan fiidkii Axadda ee xalay ahaa uu ku koobnaa baaliri kaliya isbedel muuqaal ah isla markaana uusan ku jirin ballanqaad faahfaahsan oo ku saabsan joojinta kobcinta uraniumka ama wareejinta kaydka hadda jira ee dagaalka Iran ayaa dhankeeda ku dartay qoraal muujinaya in ay ka go'an tahay in aanay samaysan hub nuclear balse Mareykanku uu ku adkeysanayo in tillaabooyin dhab ah oo xaqiijin kara loo baahan yahay ka hor inta aan wax faahfaahina laga bixin isla markaana la qafiifin cunaqabataynta iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin caawa ee nidaamka difaaca hawada ee wadanka Iran ayaa la geliyay heegan buuxa kadib markii la arkay dhaqdhaqaaqyo military oo suuragal ah wadankaasi in lagu qaado duqeymo kadisa wakaalada wararka Iran ee Al-Mehra ayaa sheegtay in la dhaqaajiyay nidaamyada difaaca cirka ee jasiiradda Qashim oo ku dhow marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyadoo sababta rasmiga ah ay tahay inaan wali la shaacin waxa dawladda Iran ee arrintaasi uga gol leedahay dhaqdhaqaaqa ayaa ku soo beegma xilli uu sare u kacay xiisadda militariga ee u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka iyo dhinaca Israel kadib warar la sheegay in weerar cusub oo ka dhana wadanka Iran uu soo dhow yahay wargeyska Israel Hayom ayaa soo xigtay ila xog ogaala waxana uu sheegay weerar kale oo Mareykanka oo lagu qaado dalka Iran in ay tahay mid su'aalan u baahnayn waxana uu dhaci karaa daqiiqad walba hadii dalka Iran uu sallayman isbedel dhameystiran ishaasi waxay sheegtay in Israel ay dhameystirtay diyaar garowga weerarka cusub oo suuragal ah in daqiiqada gudahooda u dhici karo kuwaas oo la filayo inay socdaan baaliri dhowr maalmood sida warbixinta lagu sheegay howlgalka la qorsheynayo waxa uu ka duwanaan doonaa weeraradii hore maadaama bartilmaameedyo cusub ay noqon doonaan goobaha uu madaxweynaha dalka Mareykanka hore uga baaqsaday in la weeraro marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz ayaa iminka waxa uu yahay mid xiisadiisu ay aad u kacsan tahay Trumpna uu doonayo in gool laga gaaro ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian oo xiisadan ka hadlay waxa uu ballan qaaday in wadankiisa aanu noqon doonin mid isdhiiba ilaa inta howlgallada iyo dadaalada soconaya ay sii xoogaysanayaan isla markaana dawladda Iran ay diyaar u tahay in ay si aada isku difaacdo madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay wada hadal balse taas aanay ahayn mid ka dhigan isdhiibad iyo tanaasulaad xuquuqda wadanka Iran uu leeyahay
basashkan waxa uu carabka ku adkeeyay in Iiraan wadaxaajoojyada ay ku galayso ashraf awood iyo waliba iyadoo ilaalinaysa danaha qaranka iyo amniga qowmiga ee wadankaasi iyadoo sidoo kale sheegtay in wax tanaasula aan laga sameyn doonin xuquuqda sharciga ee shacabka iyo dowladda Iiraan halkaas oo ay u muuqatay in la hoosgeliyo dowladda Iiraan inaysan marnaba doonayn inay ka tanaasusho arrinteeda nuclearka nabadda ah halka dowladda Mareykanka ay u aragto mid military wada hadalkan macnihiisu ma aha isdhiibid waxaan galaynaa wada hadal inagoo leh sharaf iyo awood isla markaana ilaalinayna xuquuqda dalkeena madaxa shacabka iyo hogaaminta Iiraan uu kor u taagan yahay ayuu yiri madaxweyne Basashkian waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdiisu aysan dib uga laaban doonin wax xuquuq ah oo Iiraan ay u aragto baaliri in ay sharci u leedahay gaar ahaan arrimaha la xiriira madax banaanida iyo barnaamijkeeda nuclearka isagoo sii hadlaya madaxweynaha dowladda Iiraan Mas'uud Basashkian waxa uu leeyahay waxaan sii ahaan doonaa kuwa u adeegaya shacabka difaacayana danaha Iiraan iyo karaamadeeda si buuxdana u garab taagan qaranka ilaa nafta ugu dambeysana fuufayno sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha dalka Iiraan ayaa waxay u muuqataa jawaabtan inay tahay mid dhamaca uu siinayo dowladda Washington xilli caawa xiisada gobolka bariga dhexe ay tahay mid xiira ah khiyaarta ay nala socotay qaybta caawa iyo faaqidaada wararka gobolka bariga dhexe oo iminka galaya marxalad xasaasi ah qaybtan intaas ayaan ku akinayaa waa barnaamijka faaqidaada iyo lafagurka caalamka ee channelka Cabdilcasiis Barrow soo dhawaada khiyaarta ay nala socotay ku soo biira labada YouTube ee Barrow Show iyo kan Cabdilcasiis Barrowba iyo barta Facebook ee Cabdilcasiis Barrow dhamaantiinba waa maasantiin